Xafladan ayaa ka dhacday saaxada weyn ee Cadan Mall magaalada Cadan ee dalka Yemen. Xafladan oo lagu magac daray bandhig dhaqameedka ayaa goor-sheegtadu markii ay ku beegneyd 4tii galabnimo ayaa dadweyne aad u tiro badan soo buuxi dhaafiyay saaxada xafladda ka dhacaysay. Xafladan oo lagu soo bandhigay hidaha iyo dhaqanka jaaliyadaha ku nool dalka Yemen ayaa si weyn uga soo qayb galay. Xafladan ay soo agaasimeen jaaliyadaha waddanka ku sugan. Jaaliyadaha ka soo qayb galay xafladan ayaa waxa ay kala ahaayeen jaaliyadda Soomaaliya, jaaliyadda Hindiya, jaaliyadda Turkiga, jaaliyadda Ruushka iyo jaaliyado kale fara badan. Dhanka kale, jaaliyadda Soomaaliya si weyn uga soo muuqatay xafladan iyadoo soo bandhigtay hidaha iyo dhaqanka Soomaaliyeed ee soo jireenka ahaa, iyagoo ku soo bandhigay heeso wadani ah, ciyaaraha sida dhaantada iyo cunnooyinka kala duwan Soomaalida hidaha iyo dhaqanka ay u leeyihiin. Xafladan ayaa waxaa ka soo qayb galay Qunsulka Safaaradda Soomaaliya ee dalka Yemen Mudane Maxamed Cumar Sheekh iyo Safiirka Soomaaliya ee u fadhiya Koonfurta Suudaan Mudane Xuseen Axmed Xaaji. Qunsulka Safaaradda Soomaaliya ee dalka Yemen Mudane Maxamed Cumar Sheekh ayaa inoo muujiyay farxadiisa. maanta waxaan ka soo qayb galay bandhig dhaqameed lagu qabanayo dalka Yemen gaar ahaan magaalada Cadan. Bandhig dhaqameedkan waxa waaye bandhig ay ka soo qayb galayaan jaaliyadaha ku nool waddanka Yemen. Jaaliyad walba waxay soo bandhigaysaa hidiyo dhaqankeeda waxay leedahay, hadday ahaato muxuu ahaa labiska, hadday tahay, hadday ahaato ciyaaraha, hadday ahaato ama hadday ahaato cuntooyinka iyo waxyaabahaas oo kaleeto. طبعا sanadkan waa sanadkii labaad oo muxuu ahaa tartankan bandhig dhaqameedka la qabanayo. sanadkii hore Soomaalidu waxay gashay kaalinta labaad ay gashay insha Allah, laakiin waxaan rajaynaynaa sanadkan inay gasho kaalinta koobaad ayaan rajaynaynaa. Sidoo kale, dadweynihii ka soo qayb galay xafladda ayaa laga dareemayay wajiyadooda farxad oo marka aad weydiiso uu sheegaya in hidaha iyo dhaqanka waddan waliba uu leeyahay ay tahay mid soo jireen ah. Cadan ma la soo koobi karo, aad iyo aad ayaan faraxsanahay markii Soomaali meel alaala meeshay ku nooshahay magaalada Cadan agagaarihiisa intii macalla intii tawaahi intii Cadan basaatiin dadka ku nool dhan maanta farxad weyn ayay u tahay inay soo bandhigaan hidaha iyo dhaqankooda ay u leeyihiin. waxaan kaga qayb galnay markii ugu horeyso heeseen fanaaniinta Soomaaliya inay si saaki heesaan hidaha dhaqankan u leenahay. heesa marba anwaaca kan wadani ahaado inay ku heesaan inaan soo bandhigno maakulaadkeena, khawaaramka, canjeerada, muufada, soorta, maxalliyaadkeena anwaac kastaan soo saarnaa. alxamdulillah maanta iyo alaabteen hidaha dhaqanka heesa roob baatiyaalka calamada aanu xiranno, calamadeena Soomaalida sawaaci alhinda hadday noqoto. يعني waxaan soo bandhignay carad faneed la dhaho, yani xoolaha keela aan u isticmaalno, maashiga looyaasha aan u isticmaalno, eriyada soo isticmaalno, aqaladeena Soomaaliya soo bandhignay. aad aan u faraxsanahay, ma la soo koobi karo farxadeena maanta. maanta si aad aan ugu faraxsanahay ka soo qayb galkan aan ka soo qayb galnay shucuubtan iyo dadkan isku imaantay oo ku jirto dadka shacbiga Soomaali oo meeshan lagu qabtay yani isku keen oo la soo bandhigayo yani qof kasta thaqaafadiisa iyo waxyaabahaas qaarkood. marka aad aan ugu faraxsanahay ma sha Allah, waa barnaamij aad u fiican oo aad u weyn, yani adduunka meel kasta oo soo qayb galay Ruushia, Hindiya, yani meel kasta ma sha Allah. wariyaalka SBC inaan inta kula kulmo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. midda kale intood waxaan kuu sheegayaa inaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan la shaarigno dawlado badan oo aan mataqaanaa annaga aan ka nahalay. anigoo fanka oo Soomaalida aan ku dhaqaaqayo hadalkooda waxaan ku faraxsanahay maharajaanka labaad aan ka soo qayb galnay. aan ku faraxsanahay oo ka dhacay magaalada Cadan. maanta waxaan ka soo qayb galnay tartanka loogu talagalay jaaliyadaha Soomaaliyeed oo ah koox walba hidii dhaqankeeda inay soo muujiso iyo waddankeeda wixii laga cunayo iyo mideeda kaleeta ah waxay waddankooda xadaare ay u leeyihiin. annaga waan soo muujinay, waxaan soo muuji karno kaashin nooc walba waan keennay. haddana fankii waa dhignay, waxaana haddeertaan aan ku rajo weynahay in aan sugno natiijada tartanka. waxaan soo bandhignay maanta inta yani waxyaal badan waxaa kamid tahay cuntada oo Soomaaliga oo mar hore soorta, cambuulada, canjeer, waxyaalka oo Soomaali raashinka Soomaaliga ka saay. waxaan ku soo bandhignay kamaan hidaha dhaqanka yani dharka oo horka shaagirees marka Hindiga. waxaan soo bandhignay bardo xafladan oo sanadkii labaad lagu qabanayo magaalada Cadan ayaa waxaa laga dareemayaa in ay sidii hore ku soo noqonaysa ammaanka waddanka. Maxamed Jeelaani, SBC Yemen, Cadan.